maalin maalmaha ka mid a Ramon oo gurigiisa jooga ayaa waxaa la soo xidhiidhay nin ka mid a dadkii jiimka ku jimicsanayay una sheegay in xaaskiisu ay qorsheynayso dhimashadiisa. ninkan ayaa matelay inuu dhintay marxalad ilaa telefishinada laga baahiyo si uu u tijaabiyo falcelinta ay samaynayso xaaskiisa oo qorsheynaysay in ay disho. waxa uu leeyahay waxaa indhaheeda iga muuqday in ay doonayso geeridayda. gabadhan oo dambibaadhayaashu ay ku tilmaameen mid ka mid ah dhagarqabayaasha khatarta badan ee aan sinaba looga dareemin falka ay ku kacayaan. kadib maxaa dhacay? muuqaalkan ayaynu maanta kaga hadlaynaa ee soo dhowaada. lamaanahani waxay ahaayeen dad aad isku jecel oo nafta wadaagay, laakiin hadda waxa uu doonayaa oo uu rabaa inuu tijaabiyo dhimashadiisa kadib dareenka xaaskiisa oo uu ka shakiyey inay dili rabto. sanadkii 2007 lamaanahani markii ugu horreysay waxay ku kulmeen meel baar ah, kadibna Roman waxa aad u soo jiidatay gabadhan quruxda badan oo markii dambe ay sheeko wadaag noqdeen. Lulu waxay ahayd hooyo single mother ah ama carmal ah oo haysata 2 carruur ah kana timid dalka Mexico. dalka Mareykanka waxay u timid si ay u hesho nolol iyo mustaqbal wanaagsan, waxaanay dalka Mareykanka gudihiisa ku joogtay fiise oo ma aysan haysan wax deganaansho rasmi ah. Roman waxa uu leeyahay waxay soo jiitay timaheega quruxda badan, joogga iyo jamaalka uu Alla ku manaystay, wuxuuna ka helay qaabka ay ula dhaqmayso iyo ixtiraamka ay u haysay intaba. muddo haddaba markii ay wada socdeen waxay la wadaagtay arrimaheeda gaarka ah sida ninkeedii hore inuu ku xadgudbi jiray oo ay ku noolayd nolol aan fiicnayn. waxay uga sheekaysay inuu ninkeedii hore dili jiray, in uu khasbi jiray, in iyada iyo carruurtooda midna aanu roonayn, sidaa daraaddeed ay waddanka Mexico uga timi. wuxuu leeyahay markii aan arkay dabeecaddeeda wanaagsan ee Lulu waxaan u qaatay in calafku uu ku daray qof xun, laakiin iyadu ay tahay shakhsi aad u wanaagsan. oo Roman aad ayaa uga helay Lulu, muddo kadibna waabay iskuursadeen. waxay samaysteen meel lagu barto feerka iyo jimicsiga kaleba, waxaanay ahayd professionka Ramon, halka Luluna ay noqotay caawiye. yacni waxay samaysteen nolol aad u qurux badan iyada oo xayeysiis wada jir ahna ay u sameeyeen meheradooda. Lulu waxay noqotay gacanta midig ee Ramon, waxaanay si aad ah uga shaqaysay horumarka ganacsigooda. muddo 3 sano kadibna Lulu waxay heshay sharciga dalka Mareykanka, ganacsigoodiina aad ayaa u sii kobcay. waxaa la yidhi nin iyo naagtii colna maaha nabadna maaha, khilaafkooda ayaa markii dambe batay. Ramon waxa uu dareemay in aanay uba sii baahnayn isaga maadaama hadda ay heshay dhalashada waddanka Mareykanka, waxaanay bilowday ayaa uu yidhi waxyaabo qariib ah inay samayso sida lacag inay bangiga kala baxdo iyadoon markaasi u sheegaynin ninkeeda. maalmaha ka mid ah Ramon oo gurigiisa jooga waxaa la soo xidhiidhay mid ka mid ah dadkii jiimka ku jimicsanayay una sheegay in xaaskiisu ay qorsheynayso dhimashadiisa. waxa uu sheegay inuu maqlay xaaskiisa oo la taagan dad kana hadlaysa arrimo ku saabsan dilka ninkeeda. kadibna uu isagu u sheegay inuu garanayo gangs Mexican ah oo dadka lacag ku soo aftuuba kadibna khaarajiya haddii ay helaan iyagu cid lacag siinaysa. gabadhaasi haddaba ninkaasi waxa uu sheegay Ramon in isagu uu taagnaa meel iyaga aan ka fogeyn, kadibna ay la hadlaysay dhalinyaro Mexican ah iyada oo markaasi ay la joogtay inanteedu, kadibna ka hadlaya qof ay dili rabaan ama ay khaarajin rabaan. kadibna ninkaasi uu u sheegay inuu isagu dadkaasi hayo. Ramon arrintaasi waa ula yaabay. adeeroo ciyaartay gala tag. hey man, gabadhu waxay rabtaa inay ku disho, in rumayso ayaa uu ku yidhi. arrintaasi kaftan ayaa uu qaatay oo wax weyn kama uu soo qaadin, waxaana uu yidhi hadda ayaan gurigayga ku sii socdaa, bal aan arko in ay gabadhaydu rabtay inay khaarajiso ama ay dishay iyo in kale. la yaab iyo afkala qaad ayay ku noqotay warka dhagihiisa ku soo dhacay. Mundo waxa uu hore uga mid ahaa gaangiska Mexicaanka ah, balse waa uu ka tanaasulay. Mundo waa ninkan hadda la soo hadlay Ramon ee u sheegay in xaaskiisu ay doonayso inay disho. arrintii haddaba ninkani ma fududaysan ee waxa uu arkay in arrintaasi ay wax ka jiraan kadib markii uu eegay waxyaabo fara badan. waxa uu doonayay in booliiska la socodsiiyo, hase yeeshee inta ka horreysa uu helo caddayn ka hadlaysa ama ku saabsan dilka ay gabadhiisu u qorshaysay. haddaba shakigii markii uu sii batay waxa uu la socodsiiyey dembi baadhe qarsoon si loola socdo haddii uu dhinto cidda ka dambaysa.
dembibaarihii iyo Ramon iyagoo adeegsanaya Mundo waxay go'aan ku gaadheen inay ka gungaadhaan qorshaha Lulu ay ku doonayso inay ku khaarijiso ninkeeda. waxaa la dabagalay dhaqdhaqaaq kasta oo ay samaynaysay. Talaabadii koowaadna waxay noqotay in Mundo uu telefoon kula xidhiidho Lulu una sheego inuu helay raggii dili lahaa ninkeeda. ujeeddadu waxay ahayd keliya in ay ogaadaan falcelinteeda iyo in arrinkani uu kaftan ka yahay iyo ciyaar. kadib markii uu la xidhiidhayna waxa uu weydiiyey bal inay weli ku adkaysanayso inay ninkeeda khaarijiso iyo in arrimahaasi ay hadda ka noqotay ama ciyaar ay ka ahaayeen. Lulu waa xaaska ninkan Ramone 3 jeer ayay ku celisay in ay rabto in ay nolosha dhaafiso ninkeeda, iyadoo weliba ugu dartay in ay lacag ugu dari doonto haddii ay arrintaasi u fuliyaan. isla waqtigaa dambibaarayaashu waxay kamarada kula socdeen baarkinka ay taagnayd Lulu, laakiin waxay sheegeen in taasi aanay caddayn ugu filnayn oo waxay yidhaahdeen laga yaaba keliya inay ka cabsiin rabtay. sidaasi daraaddeed waxaa waajib ah inay caddaymo kale ay helaan si loo gudagalo arrimahaasina waxay bilaabeen qorshayn. waxaanay isla garteen in Lulu la tuso sawirro tilmaamaya dhimashada Ramon kadibna la eego sida ay uga falceliso. waxa meel baadiyaha laga qoday godkii lagu ridi lahaa, waxaana make-up lagaga dhigay sidii qof inta xabad dhafoorka ka gashay dhanka kale uga baxday oo la meyd garaacay. keliya maaha meyd, waxaa loo eekaysiiyey in meel kasta laga jugeeyey ka hor inta aan la dilin. hadda waxaa la gaadhay wakhtigii la ogeysiin lahaa. talow Lulu maxay samayn doontaa? nin booliis dharcad ah oo iska dhigaya raggii dilay ninkeeda ayaa kula kulmay gaadhigeeda. isla markiiba waxay la soo booday oo ay siisay lacagtii intii ugu harsanayd, wuxuuna ku wargeliyey in ay dileen ninkeedii, wuxuuna la wadaagay sawirradii ay ka soo qaadeen. waa tan falcelinteedii, bal hadda u fiirso. farxad, qosol iyo raynrayn. war gabadhu axmaqsanaa. Ramon waxay ku ahayd niyad jab aad u weyn, jacaylkiisii, lamaanihii naftiisa oo ku faraxsan dhimashadiisa. bal qiyaas adigoo ay xaaskaagii hor taalo geeridaada ama dhimashadaada, adigoo meyd ah, lagu dilay, lagu garaacay, kadibna god lagugu riday, lagu aasi rabo, dabeedna xaaskaagii ay qosasho. waxaa laga yaabaa xataa haddii aad dhimatay inaad markaasi soo laab kici lahayd. waa hagaag. telefishinada ayaa haddaba laga sheegay oo laga baahiyey dhimashada ninkaasi. carruurtiisii iyo faamilkii dhammaan waxay u haysteen inuu dhintay oo arrintu ay run tahay. isla waqti xaadirka waa in booliisku ay shaqadooda qabsadaan, laakiin waxay door bideen inay sameeyaan baaritaankii ugu dambeeyey oo ay ugu tagaan gabadhaasi isla markaana ay weydiiyaan bal goorta ugu dambeysay ninkeedii oo ilaa iyo hadda la la'yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay. waxay sheegtay in muddo aanay maqal oo aanay wax xidhiidha la samaynin. waxaa la weydiiyey bal 24 saacadood ugu dambeeyey in ay markaasi telefoon ku wada xidhiidheen ama ay ogeyd meel uu joogo, waanay dafirtay dhammaan wixii oo dhan. kadib waxaa loo sheegay inay xidhan tahay. booliiskuna hadda waxay gacanta ku hayaan caddaymo buuxa oo ay ku xidhi karaan kuna maxkamadayn karaan. 4 maalmood Ramon waxaa lagu xisaabinayay reer aakhireed ilaa markii dambe uu la soo hadlay carruurtiisii oo ilmadu ay ka dhammaatay, una sheegay inuu nool yahay, arrinkuna uu ahaa keliya baaritaan. gabadhan dambibaarayaashu waxay ku tilmaameen mid ka mida dilayaasha khatarta ah ee aan sinaba looga dareemin falka ay ku kacayaan, iyadoo wajahaysa 20 sannadood oo xadhig ah kadib markii lagu helay fal dembiyeed dil ah. intaasi ayaa maanta muuqaalkeennan uu ku egyahay. akhyaaray, haddii aad ka heshay laag saar, haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe oo nagu soo biir.